بسم الله الحمد لله إنكم وقت بدن إيو أرار قلين وحين توسو قلينا موضوع عن ربنا إن شاء الله تعالى إنه نكهض الله إن بدن وحددك الصوماليات أتكو أركيسا تيفي يدودا سوشيال ميديا هودا إيو ميلها أي ورقة اسكو دافسدان هودن إلا دولة دودي برلمان كودي علماء الدين تودي هوينكي اللي يردي إيغو أو كفرية مسكحوضو بوقاسو إن أي هذا الله سيدا ديمقراطية شريعة إسلام waxyaabahaas xuquuqul insaan baarlamaanka waxaan sixinaya in waxa laga hadlayo laakiin haddana markaad u fiirsatid kuwa dimuqraadiyadda ka hadlaya dimuqraadiyaddu asal ahaan waxay tahay inaanay fahamsanin kuwa ka hadlaya shariicada islaamka intooda badan in ama diidan ama taageersan in aanay si dhab ah hor shariicada islaamka raxmadeeda iyo qaabkeeda iyo sida ay tahay iyo waxa ay tahay inaanay dhiibba u fahamsanin xuquuqul insaanka kuwa ka hadlaya in badan oo kamid in aanayba waxa looga dan leeyahay iyo waxa looga gol leeyahay iyo meeshay ka soo unkantay iyo waxa loola jeedo iyo waxa la rabo iyo dadka dabada ka riixay aan ogeyn waxyaabahaas oo dimuqraasiga laftiisa in dad badan oo had iyo goor u ololeeya oo yiraahdo dimuqraadiyad baan rabnaa dad inaanay dimuqraadiyadaba sida ay tahay in u fahamsaneen oo ay moodayeen dimuqraadiyadu inay tahay in madaxweynaha marka la dooranayo madaxweyne kale doorasho uu ku bedelo dimuqraadiyadu inta way ka xeel dheerta waana ka ujeedo weynta mabaadi iyo ujeedooyin bayan xambaarsanta dad baana unkay oo adduunka ku faafiya oo ujeedooyin waaweyn kale waxyaabahaas oo dhan inaan si kooban u fahamno dabcan waxa la qaad aad u waaweyn oo u baahan in mowduuc kasta gaarkiisa looga hadlo laakiin waqti intaan la eg ayaan qofna haynin waxaan isku dayayaa bal si kooban in aad u fahamtid waxyaabahan laga hadlaya waxa ay yihiin tusaale ahaan xuquuqul insaan marka la leeyahay xuquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka muslimka siiyey ee gabadha muslimka uu siiyey ee caruurta uu siiyey ee ragga uu siiyey ee waayeelka iyo waalidka uu siiyey ee hooyada iyo xuquuqdeeda uu siiyey aabbaha iyo waalidka uu siiyey culimada islaamka iyo dadka macallimiinta xuquuqda uu siiyey islaamku qofka maxay ahayd ummadda hogaaminaya xuquuqda uu siiyey in la adeeco waxyaabaha uu islaamku ina siiyey ee ilaaha subxaanahu wa tacaala ina siiyey xuquuq ka weyn oo qofka bini aadamka ee muslimka uu raadin karaa ma jirto waa haddii uu islaamka ku qanacsan yahay sida oo kale marka laga hadlayo xuquuq qofku xuquuqda islaamku uu sheego ee dadka muslimiinta u baahan yihiin iyo xuquuqda reer galbeedku sheegayaan waa kala labo qofka reer galbeedka ahi ma yaqaano waxyaabo waxaa jira akhlaaqiyaad oo tarbiyad iyo dhaqan iyo diin ku salaysan oo wadamada reer galbeedka aaban laga aqoon wadamada muslimiinta laga yaqaan tusaale kelmadda waxaasi waa xaaraan iyo waxaasi waa xalaal lagama yaqaan reer galbeedka yurub iyo amerika iyo australia iyo new zealand lagama yaqaano kelmadda xaaraan iyo xalaal waxaa laga yaqaanaa legal iyo illegal يعني waxaasi waa la baneeyay oo dadku waa isla ogolaaday waxaana dadku waa isla diido waa la iska daayay baa la yaqaanaa oo dadku waxay dooneen baa sharci ah laakiin dadka muslimiinta waxay aaminsan yihiin kelmad la yiraahdo xaaraan iyo xalaal waxayna labaduba kala salaysan yihiin waxa reer galbeedku aaminsan yahay iyo waxa muslimiintu aaminsan yihiin inagu aynu aaminsanahay waxa midna ka dhigay legal iyo illegal midna ka dhigay xaaraan ama xalaal in qofka muslimka aaminsan yahay waxa weeye mabaadi iyo diin weeye iyo dhaqan oo qofka deeply uu fahamsan yahay oo ah muslimiintu waxay aaminsan yihiin in al-hukmu illa lillah xukumka wax xalaaleynta iyo wax xaraamaynta iyo waxaas waa bannaan yihiin iyo waxaas ma bannaana ilaahay baa oran kara ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyna waa xaaraan wuxuu xalaaleeyna waa xalaal qofka wixii ilaahay xaaraantinimeeyay xalaalsada waa gaalnimo qof wax ilaahay uu xalaaleeyay yiraahdo waa xaraamna waa gaalnimo bay aaminsan yihiin muslimiintu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب sida oo kale gaaladu waxay aaminsan yihiin al-hukmu lil-shacab democracy waaba kelmad ka soo jeeda Greek oo ah xukumka waxa iska leh dadka democracy dadka waxa ay isku afkartaan ba sharci ah weey
marka horta halkaasayba ku kala dhinteen in dadku dimuqraadiyad ku dhaqmaan iyo in ay shareeco islaam qaataan halkaasay ku kala dhimata oo mid waliba uu jaha aadi oo ay xaq iyo baadil kala noqotay marka dadka baarlamaanka Soomaaliya galaya ee xubnaha kala galaya ee dawladda hogaaminaya ee doonaya dhaqamada iyo fikradaha legal iyo illegal iyo waxa baarlamaanka la geeyo xalaal baa laga dhigay isagoo xaraana ama waxaas waa xalaal oo baarlamaanka la geeyo xaraan baa laga dhigay de lama oran karo taas halka ay ku kala dhimanayso horta waa halkaas haddaba in badan oo dadkeena ka mid waxay u haystaan dimuqraadiyadu inay tahay doorashada madaxweynaha xilligeedii in lagu qabto baarlamaanka in la soo doorto war dimuqraadiyadu waxa weeye qofka bini aadamka ahi jirkiisa waxa uu ku samaynayo waa u xor hadduu bay aaminsan yihiin innagu dadka muslimiinta waxay aaminsan yihiin qofku wixii xalaal ahna waa u xor wixii xaraam ahna waxa weeye naftiisa kuma samayn karo gay iyo lesbian hadduu noqdo khamri hadduu cabayo hadday gabadhu is-asturasiya haddii kale maxay ahaydtay qofku jirkiisa hadduu wax ku sawirayo hadduu carabadiisa iyo meel kasta iska daloolinayo hadduu ilmo uurkiisa ku jiro soo ridayo waxyaabahaasoo kale dimuqraadiyaddu waxay u aragtaa wax caadi ah oo qofka shakhsiyan isaga ay khusayso oo go'aanka qofka u leeyahay laakiin islaamku waxyaabaha xaaraan buu arkaa marka in dad baarlamaanka Soomaaliya ku jira intay yimaadaan inay dhahaan dad dimuqraadiyeenu nahay dimuqraadiga aad u jeedaan ee dadka Soomaalidu ay doonayaan ee ay u fahamsan yihiin waxa weeye war doorashada madaxweynaha la qabto oo madaxweynaha saha ku bedelo baarlamaanka ku bedelo war taan ma aha waa dhaqan iyo akhlaaqiyad iyo nolol weeyaan iyo macaamilaad halka dadka muslimiinta ay aaminsan yihiin wixii ilaahay xalaal ka dhigana waa xalaal wuxuu xaraam ka dhigana waa xaraam horta dadku inay taa fahmaan sidoo kale in aynu fahamno hal dimuqraadiyad inaana jirinba oo wadamada ay wadan waliba maslaxadiisa iyo danihiisa iyo sida uu isagu wax u arko in uu wadankiisa uu wado xataa federalismka caalamka ka jiraan isku mid ahayn wax federaal ah oo hal mid ah oo adduunka ka jira ma jiro wadan waliba federaalkiisu waa federaal dhaqankiisa iyo masaalixdiisa iyo demografiya geografigiisa iyo habka uu u nool yahay iyo historigiisa iyo diimihiisa iyo masaalixda iyo bulshadiisu say isu dhexgalaysa iyo say isu qaadan karto iyo tarkiibul qabaligiisa iyo waxaas ku salaysan weeye iyo environmentigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo manhajkiisa iskuulada iyo curriculumka jaamacadaha ay u dejisanayaan waxaasoo dhan wax diime iyo dhaqan iyo ku salaysan jiritaanka wadanka iyo guriga iyo qoyska wadankaasi u leeyahay marka horta dadka muslimiinta inay fahmaan baa loo baahay waxyaabahaas oo dhan waxa kale oo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo oo iyadu aad muhiim u ah dadka Soomaalida ahi iskuulada ay dhigtaan maadaama wadanka ka burburay waxaa laga yaabaa magaalo inay ku wada yaalaan intaasoo iskuul oo kala manhaja oo kaasi uu Masar ka soo qaato kaasi uu ka soo qaato Ingiriiska mid kale uu ka soo qaato Mareykan manhaj kale laga soo qaato Kenya laga soo qaato mid kale waxay doonaan bay dhigayaan waxaa soo baxaya dad kala fikir ah kala mabaadi ah kala nooca hadhowto marka ay isu yimaadaan aan macaamili karin wadamadu sababaha ay manhajkooda u midaynayaan waxa weeye si dad isku mid ah oo isku fikira oo isku taariikha oo isku wadaniyadii u soo baxaan oo isku taya ah marka qoyska Soomaaliga ah wuxuu u baahan yahay ilmihiisu in uu noqdo sida hooyada iyo aabaha muslimka Soomaaliga ay doonayaan gabadhaada waxa doonaysaa gabadhaas turan wiilkaaga wiil wadaadaha muslim aad la rabtaa aan balwad lahayn haddii gabdhaha la helayo naag haweeney macallimada dumar ay u dhigto haddii la waayana nin akhlaaq leh oo aan balwad lahayn oo edeb leh macallin u noqdo dadku saas ayay u fikirayaan marka in ummadii la qarqiyo oo dastuuro loo sameeyo oo maxay ahaatay waxyaabo leegay iyo lesbian loo codeeyo oo haween qaaqaawen inta baarlamaanka lagu daro ay ka dhaxqayliyaan firimbiya qaataan oo maxaan dhahaa rag maxay ahaatay liberal waxa weeye waa qof doonaya wax kasta wuxuu doono inuu sameeyo wuxuu doono qof liberal baan ahay oo democracy baan ahay oo waxaasaan ahay marka dadku yiraahdaan wax jira ma waxaas waxa weeye qofka muslimka waa inuu islaami noqdo weeye
qofka muslimka ah waa inuu muslim noqdo weeye waa cibaado marka horta dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin dadka ay baarlamaanka ku darsanayaan inay diimahooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqahooda iyo dadkan Soomaaliyeed dad matali kara inay yihiin in laga hubiyo in rag iyo dumar Soomaaliyeedoo meel laga soo tuuraan aqoon diineed lahayn mid maadi lahayn tarbiyad fiican lahayn baarlamaanada lagu soo darsado wasiir laga dhigto madaxweynaha laga dhigto runtii waa ayaan darro weyn weeyaan oo wax burbur ku keenayo kamid ah waxaa jira nimankan hadda geeyga lesbianka ah oo hadda faraba aan ku hayo reer galbeedka oo dawladdii iyo systemkii iyo manhajtii iyo meel kasta galay oo heer iskuuladii in wax lagu dhigo waxyaabaha gaarsiiyay reer galbeedkii inay hadda wadamada Afrika iyo Asia ay duulaan noocaas ku yihiin inay systemka iyo dastuurka iyo baarlamaanka iyo dawladaha dhex galaan waxyaabaha hadda Soomaaliya baarlamaanka la horkeenayo oo waxyaabo dhaqaale lagu bixinayo oo dadka baarlamaanka hogaamiya dhaqaale la siinayo oo la leeyahay arinta hirgeliya haddii lagu hirgeliyo waxay noqon doontaa in qofku haddii uu waxyaabo khaniisnimo aan sameeyo hadday lesbian sameeyaan hadday jirkooda ka ganacsadaan hadday waxay doonaan sameeyaan in markaa loo ogolaado oo ayan dambi noqonin halkaas ay uga gol leeyihiin marka in dadka Soomaalida ay feejignaadaan qabyaaladda iyo buuqa aynu isku mashquulsanahay iyo burburka in haysta ma aha in lagaga faa'iideysto wax walba oo dastuurkeena lagu qoro wax walba dastuur maba inoo noqon karo wax dad qoreen shariicada islaamka dadku inay qaataan weeye sida saxda ah dastuurka dhabta aynu leenahay waa shariicada islaamka waa la diidayaa waana iloo diiday xoog isticmaalka ina qabsaday ilaa iyo hadda iyo ka hor macnaha marna jahli baa inoo diidaya marna isticmaar baa inoo diidaya inagu ma noqon karno dad dastuur loo qoray dastuurka islaamka ee inoo qoran shariicada islaamka ayaa waajib inagu ah haddaynu diidno waa gaalnimoba gaalnimo shariicada islaamka isku xukunno weeyaan culimaynu leenahay ma aha urur hebel ha ku xukumo urur hebel ha ku xukumo culimo badan baa jirta culimo intaasoo firaqba oo kala duwan in la iswaafajiyo oo shariica islaam oo dadkeena lagu xukumo oo hooyada Soomaaliyeed iyo abaha Soomaaliyeed iyo qofka Soomaaliga ah marka inta cadaalad uu helo maxkamad la soo taagay ee shariicada islaamkeena isla naqaano lagu xukumo uu qancaya nabadgelyo iyo cadaalad baan dhalanaysa laakiin xarafka B faqradda C xarafka E lambarka doodisha kan waxaas dadka lagu xukumaya marka runtii dadkeenu inay diinta islaamka u soo noqdaan oo culimadu istaagto oo la toobad keeno shariica islaam la qaato oo qofka xubnaha baarlamaanka iyo dawladda noqonaya in uu yahay qof aqoon diin leh aqoon maadi leh taariikhda garanaya suugaanta garanaya dhaqanka Soomaalida garanaya qof tayale inuu noqdo weey laakiin dad dumar qaaqaawan iyo rag qaylinaya oo isu soo xirxiray iyo maartay waxa in dadka la soo dhex taago oo maalin walba ay dadka ka dhex qayliyaan waa ayaan darro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.